madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay sheegay inay safarro ku tagayaan gobolada dalka si ay wada tashiga uga qayb galiyaan dadweynaha Soomaaliyeed. Wasiirka Cadaaladda iyo Dastuurka Soomaaliya Mudane Faarax Sheekh Cabdulqaadir ayaa u sheegay guddiga uguna baaqay in la doonayo in qof kasta oo Soomaaliya ay ka qayb galiyaan samaynta dastuurka iyo wada tashiga. kaasi oo uu sheegay inuu yahay dastuur dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin markii ugu horeysayna lagu samaynayo gudaha dalka Soomaaliya. Luul Xuseen Cilmi ayaa warkan ka soo dirtay Muqdisho. guddiga dib u eegista dastuurka ayaa kulan wada tashi ah la qaatay bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana kulanka ka qayb galay xubno kamid ah golaha wasiirada xildhibaano ka tirsan baarlamaanka waxgarad siyaasiyiin culumaa u diin dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. kulanka ayaa waxaa ka hadlay wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Faarax Cabdulqaadir oo guddigan ugu baaqay inay sameeyaan wada tashiyo ballaaran oo dhanka bulshada ah. annagu hadii aan nahay xukuumad waxaanu ballan qaaday oo ra'iisul wasaaraha golaha wasiirada iyo madaxweynuhu ay ballan qaadeen in hawsha dib u habeynta iyo dib u eegista dastuurka ay noqoto hawl ay dadka Soomaaliyeed iska leeyihiin hawl ku hirgasha waqti munaasaba waddanka Soomaaliyeed gudihiisa lagu sameeyo dadka Soomaaliyeed ay samaystaan qof kasta oo Soomaaliyeed inuu ka qayb galo dadkana waxay diyaar u yihiin sida aynu ku ballanay iyaga idin sharci doono inay qof kasta oo Soomaaliyeed meesha uu joogo ay ugu tagaan. gudoomiyaha guddiga dib u eegista dastuurka Marwa Caasha Geeley ayaa sheegtay in guddigan ay tagi doonaan dhammaan gobolada dalka si ay u soo aruuriyaan ra'yiga bulshada ee ku aadan dib u eegista dastuurka. waxaan inaan xoga dheeraad ka soo urursano bulshada qaybaheeda dal iyo dibad gobollo dhalinyaro iyo waayeel beenaan ka soo urursano waxaa marka su'aasha isweydiin kale waxa waaye iyo hawshaas qabanaya anaga qabanayna mashaatiyadan qabanayna guur isku xirayna waxaan hawshaas noo qabanaya haddaba oo loo xil saari doonaa guddiyo kala duwan iyo xeeldheerayaal Soomaaliyeed oo isugu jira qaybaha bulshada oo dhan oo dal iyo dibadda jooga iyaga ayaa waxay noqonayaan dadka hawlahaas nala fududeeya wuxuu noqon doonaa hawl Soomaaliyeed waxaan ku qoran doonaa af Soomaali waxa aan ku shaqayn doonaa af Soomaali. Luul Xuseen Cilmi, Universal TV, Muqdisho.